Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Casharkeeni maanta waa lesson-keeni shanaad kaasoo aynu ku dhigan doono sida data looga raadiyo table-keena SQL-keena dhex yaala. Wixii information ama su'aalaad waxaad nagu xidhiidhi doontaan email-kaygan samtech22@gmail.com. insha Allah casharkeena bilaaban doona. Waxaynu tagnaa DB connection-ka, waxaynu ku darsanaynaa variable-ka wax ku darsan doono string search ade. halkana waxaynu u kala saaraynaa si koodhkeena noo aqbalo searching-ka isagoo kala saarsan intayna soo copy inoo dhex dhig control V inoo kala jebi kala waxaynu sahlaysaa calaamada cad oo aynu ka horeysinay. name-ka baan weydhi doonaa command dot parameters dot add with value name inoo weydh parameterka magacaabanay. halkaa oo la mid noqon doonaa searcher plus double quote home control-ka tegi doonaa isla variable baan magacaaban doonaa string search halkana searcher noqotayn search. insha Allah hadda waxaynu samaysan doonaa textbox waxaynu raadin lahaa. insha Allah listigeenu tegaynaa form baynu samaysanaynaa action baynu dhiibaynaa halkana ku dhex jiro waa listiya method baynu dhiibaynaa post inooga dhig textbox halkana u qor input type noociisu yahay text name baynu dhiibaynaa namekiisa wuxuu noqon doonaa ka halka inoo yaala waa kii actionka inoo sameeyey viewga inoo qaabilsanaa list search waa button-ka aynu samaysano button class btn default waa ka dhig magaciisana search save kare inoo play kare daba inoo refresh kare continue mobile search inoo soo saaray. kaas waa searchingkii. daba aynu partial view ku dhex darsano casharkeena maanta. partial view inagoo textbox-keena partial view dhex dhigan doona kana soo dhex aqrin doona halkiina meeshiisaas ka bedeli doona. insha Allah waxaad tegaysaa folderka home controllerka add baad dhahaysaa waxaad dhahaysaa view calaamadii partialka lagu horeysan jiray waxaad dhahdaa search inoogu bixi meel laba ka soo qasban create as partial. inooma dhex yaalaan da waxaan tegaynaa inteenan inooga soo qaad control X isaga inoo dhex keen control V inoo save kare
هذا ما عن بينك وجيران دونا إنه كيني دونا مش يعني إنك كان كقارن آت HTML dot partial بس دبل كود سكرين راح كده اوكي كان شيء اسمه بدين لابتوب إنه كم موضوع هالكاي نوتو نا تفهم كده أنا أصلا نجح سجن كده class column LG offset كبود هسه سجل كبود column LG وهنا صار وسطها سكرين كنا سوون قادا halka ilaa halka intayna u muuqato 12 kani hadaba in marnaan doonto iyo in ka muuqan doonto text boxkeena okay waxa laga boodi doonaa marnaan doonto 9 kala waxaana u fadhiisan doonaa keenu 3 kala save inode inka refresh kare halkaasna fadhiisay shaqadiisna wali u qabanaya عشر كلمات انت سوكي كان دونا وانا يا 10 كان هي